fariinta waxay ku socotaa wiilasha doonaya inay guursadaan haddana aan lacag haysanin madax xanuun baa tan madax xanuun socda warbalfalowda iyo loofta ii soo dhangadeeya intaan xalka idin raadinayo adiga waa in xal lagu raadiyo madax xanuun socdaa tahayniyo wariyaahe labada shay oo kaliya samee ee soo socda labada shay haddaad samayso iska daa ninkaagan aroos yar iyo biil aad gabar biisho iyo biil aad reer biisho inaad ka fikirto iska daaye arsaaqada waxaad arkaysaa sida roobka iyadoo kugu daadanaysa arkaysaa sida roobkan ku yiri haddaad labadaas samayso oo aad arsaaqad weydo lacag badan weydo faraj ilaahay kuu furi waayo liiska kadaabiinta igu dar labadaa intaadan gaarin oo aynaan ka hadlin marka koowaad walwalka horta iska saar halkan iska dhig war ilaahay bay arsaaqadu gacantiisa ku jirtaa ilaahay subxaanahu wa tacaala qaniya naxariis badan dunidoo dhan abuurtay aakhiriya adduunba isaga ay addoome u yihiin khasnadihiisu aysan marnaba aynan faaruqin dunida oo dhan hadduu qani ka dhigo aysan waxba u dhimayn kuu doono qani ka dhigo kuu doono ku adkeeyo wuxuu doono sameeya alla qani ayaad leedahay kun kaliya ay ka xigto wuxuu sameynayo walwalka horta arsaaqada aad ka walwalayso horta halkan iska dhig laakiin labada shay oo kaliya samee shayga koowaad noqon nin toosan oo ilaahay ku xiran dunuubtana iska ilaali kama dambayso tan kama dambayso xaqiiqatan tan kama dambayso sideedaba waxbaan ba kuu sheegayaa meelay ka dhowdahay baan kuu sheegayaa waxa inaga oo dhan ba isku keentar kulligeen rag iyo dumarba mid weyn iyo mid yarba waxa arsaaqada shayga arsaaqada inaga xira inaga bloggareeya waa dunuubteena waa dambiyadeena blog ma maqli jirto wax la bloggareeyay hal dambi aad samaysay ayaa sabab u noqon in arsaaqada laga xiro maalintii intee dambi samaynaa marka koowaad noqon nin ilaahay ku xiran cibaadadii hagaajinaya salaadihii ku dadaalaya ilaahay xusaya istighfaarsanaya salliga nabiga ibn nin ilaahay qumano ilaahay ku xiran noqo isla markaana dunuubta iska ilaaliya bila aadan baa tahay marka dambaabtana toobada ku dadaal waa qodobka koowaad warka labaad ma ku sheegaa ka labaad waxa weeye daha iska fadhiyeen dhaqaaq horta labada lugood kala dhaqaaji arsaaqada raadi meeshan janna ma saaxiib adduunyan joognaa jannada ilaahay hayna geeyay meel janna la yiraahdo kaliya loogu tagaa meel qofku wax allaali wuxuu rabo uu helo halkaas janna loogu tagaa halkan waa adduunyo halka kani waa inaad shaqayso labada shay baad u baahan tahay shaqo ma hayo war adigu soco ilaahay ma ku xirnan tahay dunuubta ma iska ilaalisay soco wax raadi xamaali raadi ganacsi raadi tukaan ka shaqee waxa doonti qabo iyaama yar dabadeed waxaad arkaysaa arsaaqadu wal quraanka soo ma akhrisid waman yattaqillaha yaj'al lahu makhraja ويرزقه من حيث لا يحتسب ميل أين تشرين بينو كرهاديننا بهاش سمو ميل يسن تشرين بينو بهاش كرهاديننا ويرزقه من حيث لا يحتسب وحب الله جاء أرساق يا ميل فيلين بقى أرن كست مخرج بقى له كوفريا ور ميل بهاش بورين وشفنا سمو ميل ين تشرين بينو بهاش كرهاديننا بقى لبعض الشيء هذا سميسو اسكدا بيلير يرير أنت تكفكرت اسكدا يه أرساق ده واحد أركز سيده صاحب وجود هذا نسا أرنت وجود بيساء أرنت وجود بيساء مهم كعد صبينا صاحي هاي جبر كوتش على ما هي ستانية وحيس كده هي جبر كوتش ما جبر كوتش على بعد قرش يكيد كوكو حرتا حتى أردت جبر حجة وضعته كان إيبي كان سمية كان جي ميرهب لا أراس كي حكدي إنه أقل كي قاري يقول إيجو سان سمية صح جبر حجة وضعته هذا أردت وما بتش على جبر كوتش على معها حتى العقل هذا تحسوك اللي ما جورسدو جبر لو مركي كوتش عشاه بلا آذن كونه أكسن إلى هاي معبورين تعالك ربطها قبلها قدرين ماذا وعنتها waxay ku leedahay adiga uun inaan ku helo meed dirinta hadan oo ku kula seexanaysa naagta day ku jeceshahay marka koowaadba maxaaba isku kadinaysa naag afka taaga soo kan ii samee kan ii markaad guursatana saas un bay u wadaysaa xujo un bay wadaysaa taa looma dhawaado ka carab laakiin labada shay kaliya samee arooska ka walwalinba arooska midda kale had waxa ugu muhiimsan ee la rabo inaad xoog saarto waa inaad reerkaaga biilan karto arooska waa shaqo qarin nin raga hadaa tahay lagu kalsoon yahay reerkiisa biilanaya tolka ku dhisaya arina dhisay tolkiime waa lagu la dhisaya ana jecel wiil kasto oo Soomaali in la dhiso taa walba ma balaba ma tahay nin reerkiisa biilan kara taasa muhiima labada shay sameeyniyo gabar ku jecelna raaso oo danta kula fahmaysadee mid samada ku faruuxina aday ciro ka soo saaraysa